محمد عبد الله فرماجو doorashaha afgambi maya qofka tuuga in dadka lagu ceebeeyo qofkan waa tuug amaanada loo dhiibo ku takrifalay trustiga dadku violate gareeyay umadana wax ka qabanay محمد عبد الله فرماجو بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن وناكسن داود يل ملك سو دنيا ka joogtaan iyo sulbad nala socotaan halkani waa shabakada wararka shacabka TV oo soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka dalka iyo caalamka intiisa kale qodobada wararka xiliga kali aan idin hayno waxa ugu waaweyn dagaalada ka soconaya dalka Ukraine ciidamada Ukraine oo muuqda kuwa isdhiibay iyo madaxweynaha dalkaasi oo Ruushka ka codsaday in marka xabadda uu joojiyo isla markaana wax waliba uu ka doonayo Ukraine oo kala xaajoonayo waxaanu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka dhacay dalka Ukraine Ruushka iminsa qasaare ayaa ka soo gaaray kasoo Ukraine-ka madaba in ka badan 500 oo askari inay Ruushka kaga dhinteen dagaalada ka dhacay dalka Ukraine halkaas oo weerar ku qaaday balse dunidu waxa ay la fajacsan tahay Mareykanka iyo dawladaha kale ee galbeedka oo barihii la soo dhaafay bootooda lala jooga kari waayay warbaahinta iyo baraha bulshada oo hadalkooda ku soo koobmay in ay markaa yiraahdaan Ukraine iyo Ruushka waxaan ugu baaqaynaa in marka ay wada galaan isla markaana ay Ruushka ay joojiso duulaanka hadaba hadalada afka ku koobnaa ee galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo iyaduna waa eegi doonaa marka laga reebo Britain oo u muuqata in ay si toos ah garab u siinaysa ma u garab istaagtay Ukraine kadib markii ay joojisay diyaaradaha marka ka dagaya Britain iyo sidoo kale maraakiibta dawladda Ruushka talabada ay qaaday dawladda Britain ayaan eegi doonaa wararka kale xiisaha badan waxa kamid ah magaalada Muqdisho ay marka ka bilowdeen isku soo baxyo iyo kulamo waaweyn oo marka lagu taageerayo dib u soo laabashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya munaasabad balaaran oo ka dhacday saacadii la soo dhaafay isla magaalada Muqdisho oo lagu taageeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan eegi doonaa iyo dadkii ka qayb galay kulamadaas wararkeena kale xiisaha badan ee aan idin soo gudbin doono waxa kamid ah ciidamada militariga Soomaaliya oo mar kale loogu deeqay saanad ciidan yaa bixiyay saanadaas ciidan ee lagu wareejiyay ciidanka militariga Soomaaliya iyada oo dawladda Soomaaliya ku guuleysatay diburiska iyo qalabeynta ciidamada qalabka sida qaybooda kala gedisan iyaduna warbixin ayaan idinkaga haynaa meel kasta oo dunida ka joogtaan kulanti haboon ayaan idin leenahay halkani waa shabakada wararka shacabka TV oo soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka iyo caalamka intiisa kale doodaydu waxa ay ku saabsan tahay daawadayaal marka aan eegno oo kale dhinaca Ukraine ka hor inta aanay dagaaladu dhicin isla markaana Ruushka uusan gudaha u galin magaalada Kiev iyo magaalooyinka kale oo weyn ee dalka Russia Mareykanka iyo reer galbeedku bariil la soo dhaafay waxa ay markaasi baraha bulshadu la joogeen dood far badan iyo sidoo kale dhaliceen ka dhana Ruushka iyo hanjabaadyo balse ugu dambeyntii warka Mareykanka waxa uu ku soo ururay in marka uu yiraahdo Ukraine ayaan u duceynaynaa iyo sidoo kale Ruushka waa uu qaldan yahay adigu waxa uu Mareykanka uu sii waday hadalkiisi afka ku koobnaa taasi maxaa laga baran karaa ma la oran karaa Ukraine dabin ayaa loo dhigay inkastoo markii hore Ruushka uu ka soo horjeeday sida reer galbeedku ugu dhaxmilmayeen arrimaha Ukraine warbixin saabsan ayaan eegi doonaa fikirkiina lagu soo gudbiyay qaybta hoose ee faalooyinka sidoo kale waxaad ka soo hadli kartaan daawadayaal wararka kale ee ku saabsan xaaladda dalka iyo caalamka intiisa kale iyo dib u soo laabashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee kambeynkiisa uu ka bilowday waqtigan gudaha magaalada Muqdisho wayno sidaas iminka inuu ku bilowno qodobadii wararkaasi oo faahfaahsan marka hore waxaan u eegaynaa xaaladii ugu dambeeyay ee dalkan yar ee lagu magacaabay Ukraine halkaas oo marka Ruushka iyo galbeedku ay kala qaybiyeen ugu dambeyn dagaal xoogan oo ka dhacay isla markaana Ruushka uu ku qaaday Ukraine ay keentay in marka uu gudaha u galo dhowr magaalo oo kamid ah magaalooyinkii markii horeba ama goboladii Ruushka uu aqoonsaday in marka jamhuuriyad gaar ay marka yihiin ciidamada Ruushka ayaa gudaha u sii galaya magaalada Kiev iyo magaalooyin kale oo weyn oo ka tirsan dalka Ukraine gaar ahaan gobolada dhankiisa xiga oo marka horeba sheeganayay in marka ay ahaayeen kuwa ka tirsan dalkiisa ciidamada Ukraine ayaa iyaguna wali waxay u muuqdaan kuwa iska caabir muujinaya balse waa laga itaaranaday marka xaqiiqda la eego maxaa yeelay ciidanka Ukraine ma ahan kuwa marka u bacbacdhigi kara Russia oo marka la eego dawladda Russia oo soo dhisnaan qarni ka qarniyo ciidankeeda iyo hubkeeda iyo Ukraine oo dagaal ka soo kabanaya 2015 muddo laga joogo iminka xiligaasi oo waa 15 in dagaal ay ka dhaceen halka la xasuusto waxaan ka badnaan 5 sano ama 6 sano oo qorana ay xasilooni iyo sidoo kale dawladnimo un cagta saaraysa dawladda Ukraine marka la eego dagaaladii hore ugu dhacay sanadihii 2014 2015 haddaba dalkan yar ee la isku haysta ee Ukraine
isla markaana ruushka dariska la ah marka la eegana wadamo kale oo Yurub ah daris la ah sida Poland iyo wadamo kale oo marka dowladaha Yurub iyo Mareykanka iskaashanaya iyaguna ay doonayaan in ay marka Ukraine ku dhaxmilmaan si ay booska kaga saaraan ruushka waxay ahayd dood iyo qorshe siyaasadeed oo in muddo soo jiitamayay qoraalkii ugu dambeeyay ee la soo dhigay bogga Twitter-ka ee madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa markaasi uu ku sheegay in ciidamada Ukraine wadada kaliya ay u furan ay tahay inay isdhibaan oo ay hubka dhigaan ayna joojiyaan dagaalka ay la galayaan ciidanka Russia waxyaabaha yaabka leh ee la arkay waxa kamid ah in gaadiidka dababaadka ee sida taangiyada ee Ruushka markii ay magaalada Kiev qayb kamid ah soo galeen galinkii dambe ee shalay in marka gaadiidka yaryar oo dadka rayidka isticmaalayaan ayay taangiyada la dulmarayeen waxa la arkay gaari socdo oo raaxo ah oo marka ciidamada Russia dulmarsiinayeen taangiyada taasi waxay ahayd mid kamid ah dhacdooyinka yaabka leh xanuunka badan ee ka dhacay dalka Ukraine dhinaca kale qasaare xoogan ayaa soo gaaray dowladda Ukraine waxa la burburiyay taaladii dheereed ee magaalada Kiev halkaasi oo marka gantaal iyo hub kale culusba ay la dhaceen ciidamada Russia qasaaraha ciidanka Russia marka iyaguna waxay gaarsiisay yihiin sida xogta aan ku helayno waa ilaa iyo 500 oo askari oo Ruushka kaga dhintay dagaalka inkastoo Ruushka uu qarsanayo qasaaraha baaxadda leh ee marka ay dagaalka kala kulmeen ama uu ka soo gaaray madaxweynaha dalka Ukraine ninka lagu magacaabo Zelensky ayaa isaguna fariin kala mar kale uu soo saaray saacadii la soo dhaafay wuxuu ku celiyay baaqiisa ahaa in dowladda Russia ay joojiso dagaalka isla markaana diyaar u yihiin wada xaajoodida dagaalku wuxuu galay maalintii saddexaad taas ayaana keenaysa in uu marka wajiga kale yeesho haddii wadan kamid ah wadamada kale ee Yurub ama kuwa caalamka uu la safan lahaa dhinaca Russia ama dhinaca Ukraine oo iyadu marka u muuqato in laga itaal roonaaday dagaalku wuxuu isku bedeli karaa mid caalami ah wuxuuna gaari karaa wadamo kale Mareykanka iyo wadamada kale ee Yurub iyagu Britain ay kamid tahay waa ay ka gaabsadeen inay Ukraine si buuxda u garab istaagaan xitaa ay ka caawiyaan saanada ciidanka waxa ay ka baqeen baa la leeyahay Ruushka oo haysto hubka nuclear-ka iyo saanadaha kale ee ciidanka culus iyo hubka kale inuu marka isagoo ku sugan dalkiisa uu ka duqeyn karo wadamada kale ee Yurub sida darteed wadan waliba wuxuu ka baqay qasaaraha kaga soo imaan kara dhinaca dagaalka Ukraine haddii uu soo faragashto hanjabadii madaxweyne Putin ayaana ahayd haddii dowladaha Yurub iyo kuwa kale Mareykanka iyo reer galbeedka ay soo faragashtaan xaaladda Ukraine in awaaqib xun iyo talaabo adagba uu ka qaadi doono marka taa waxa la oranayaa waa ay ugu wacan tahay in marka ay baqaan Mareykanka iyo Yurub dagaalka maalintii saddexaad galay weli ka soconaya Ukraine dhimasho fara badan oo xagga rayidka ah oo kumanaan ah ayaa markaasi la soo warinaya geesta kale waxa kale oo jirta in Soomaali badan oo ilaa 400 oo Soomaali ah oo 400 qof oo Soomaali ah ee dagaalada ku barakaceen iyaga oo marka ay u gudbay xadka wadamada kale ee daris kale ah Ukraine Soomaali fara badan ayaa marka dhibaato ay ka soo gaartay inkastoo wax dhimasho ah oo Soomaalida dhankooda ilaa haatan aan la soo sheegin xataa haddii ay jirto maadaama isgaarsiinta iyo xiriirka Soomaalida halka ay aad u adkaatay hase ahaatee dowladda federaalka ee Soomaaliya war ay soo saartay iyadana waxay sheegtay in la soo badbaadinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo marka dowladaha kale ay kaashanayso jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya warkoodana ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la soo badbaadinayo dhammaan muwaadiniinta iyaguna loogu baaqay inay goobaha xasilan iyo magaalooyinka xasilan si loo caabiyo ay si tagaan Soomaalida wixii ka soo ka dhaxalka Ukraine oo dagaalka maalintii saddexaad u galay daawadayaal halkan ayaad kaga soo doontaan shabakada wararka shacabka TV bal marka kan aynu eegno magaalada Muqdisho oo ka bilowday markale kaambeynka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wadana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaambeynka ayaa aad ugu bilowday Muqdisho iyada oo kulamo siyaasadeed oo iyo kulamo kale oo inaba caadi ahayn ay ka dhaceen qaar kamid ah hoteelada magaalada Muqdisho qaar kamid ah dadkii kulamada ka qayb galay ayaa cod dheer ku sheegaya waxqabadka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wadana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 sano iyo barka la soo dhaafay iyaga oo sidoo kale sheegay inay muhiim tahay dib u doorashada madaxweynaha bal waxaanu eegaynaa qaar kamid ah munaasabad weyn oo ka dhacday Muqdisho saacadii la soo dhaafay dadkii hadalada ka jeediyay iyagoo markaa ku baaqay in mar kale dib loo doorto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay sheegeen inuu yahay siyaasi ay ka go'an tahay horumarinta Soomaalida isku qabiil manihin isku cid manihin waxa isku nahay malaha lacagna ma siiyo anaga dalkeena inaan difaacno ayaa har iyo habeen aan u taaganahay iyo wadankeena inuu ku soo noqdo sidii hore iyo sidoo aan jiray madaxweyne waxa leeyahay in kastoo mushkiladuhu
madaxeena daasheen ummadaan midaysneen meel sare ma gaadhee mowqifkaaga nabadiyo mabda'aagu waa guul madaxweyne soo noqo mar labaad inoo tali oo dalkeen uu yahay dalna markii la toosanayo meesha ugu horeyso laga toosanayo uu yahay hoggaanka inaan hadda aan wax ka yeelano qofkii aan dooran lahayn iyo qofkiina hogaamin lahaa si uu yani dalkii iyo dadkiiba maanta itijaah iyo way fiican looga hagaajiyo sidaas darteeda markaa mudnaanta markaan aragnay maskaxdeeni iyo aqligeeni iyo fikirkeeni iyo qof walbo dalkan wuxuu u galay iyo wuxuu ka soo qabtay waxaan u fahnay in Abdullahi Farmaajo wuxuu noo sheegay 2020 inuu ka soo saaray qaraar in aan wax hanti dadweyne ah ama hantida qaranka aan la boobi karin cid kasta oo hadeer ku shuqlan in arrimahaas iyo waxa weeye samaysona waxa weeye horay ayuu madaxweynaha noogu sheegay waa inaad ogaataan waana ku mahadsan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ilaaliyaha qaranka iyo ilaaliyaha shacabka ummadda Soomaaliyeed hantidooda ilaaliyaha bulshada Soomaaliyeed horta wadankani wuxuu ka yimi 30 sano waqti aad fooda ah uu ka yimi runtii madaxweynayaal badanna waa soo mareen nin waliba wuxuu soo qabtayba waa soo mareen maanta se waxaynu joognaa waqti faynankii u dambeeyay ee aynu wanaag iyo sharafba aynu ku taaganahay nabadgeliyo iyo wadankii oo inoo dhismay iyo ciidankii oo inoo dhismayba haddaba kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadkii hadallada ka jeediyey isigoo kooban ayaan usoo qaadanay munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka dhacday saacadii la soo dhaafay gudaha magaalada muqdisho ay ka qaybgaleen qaar ka mid a boqolaal Soomaaliyeed oo markaa ka mid a dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel gabagabadiina marka aynu eegno taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa saanad ciidan iyo hub kale ee guddoonsiiyey cutubyo ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa degan xerada Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose sanada ayaa ciidamada lagu guddoonsiiyey qaybta xerada uu ku leeyahay Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose waa taliska Mareykanka halkaasi waxaa tagay mas'uuliyiin ka socda taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika iyo saraakiil sare oo iyaguna dhinaca ciidamada militariga Soomaaliya ka socday oo sanada kala gudoomay dowladda Mareykanka ayaa wuxuu gacan siiyay ciidamada militariga ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya warki oo aad kala socoteen dawadayaal shabakada wararka shacabka TV waqtigana waa naga inta waad ku mahadsantiin daawashada wararka oo inoo qaybaha kale oo wararka soo socda nabad geliya ayaanu dalanahay